leh dad madaxweyne dalkan ka soo noqday oo fawdo bilaabaya madaxweynayaal dalkan ka noqday iyagu soo xukumi jiray oo maanta iyagu horseedka ah fitanka iyo dhibaatada iyo dhimashada ummadda Soomaaliyeed war dadkaasi sidee bay mas'uuliyad u qaadi karaan sidee wax loogu dhiib waxa halka ka muuqata waayo noocaas ay wadaamisan yihiin intooda badan nin shalay madaxweyne ahaa oo ummadan qaran dhan madaxweyne ka ahaa oo maanta qabyaalad iyo qabiil iyo wax ilaahayna ka shartiday hogaaminaya waxa ka sii daran ra'iisul wasaarihii dawladdan ka mid ahaa horkacaya dhibaatada wax waa ka soo horjeeda sharciguna ma ogolo marka shalay ahayd dibadda soo dhiga Soomaalinimadina cadeeya xabad bilaabina mudaaharaad miya ma banaana kiisan waa يعني waxa weeye laguma ordo burbur wax la yiraahdo midowga barashaxinta waxa leeyahay mudaaharaad banaysanay dhiigii oo xalaashanay ma ilaahay baynu ku kalsoonaan weynay inoo tilmaamay inuu dhiigu bini'aadamku xaaraan yahay oo mise aayadaha ka hadlaya maynu rumaysnin oo ma aaminsanin warkaas inuu xaqiiqo yahay shaki bayna kaga jira baan u malaynayaa haddii shaki soo dhacana islaamnimadeedii baa shaki ku jira mise innaga aaminsan barka kale inuu gaala yahay oo markaa inaynu isku duullo oo isku jihaadna inoo bannaan tahay waa isweydiin wey waayo qofkan muslimka ee mu'minka ah dhiiggiisu waa kaa xaaraan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa la amray dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah xadiiska macnihiisi hadday sidaas sameeyaan casimuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiiggooda iyo maalkooduba xaaraan buu iga noqday haddii laa ilaaha ila allahu ay la yimaadaan qof laa ilaaha ila allahu leh haddaad waa reer hebel ku disho ama ugu duusho qof laa ilaaha ila allahu leh haddaad ugu duusho maxaanku idhaahdaaye muxuu madax noogu noqday ama talada noogu hayaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii عليكم السمع والطاعة وحا كركين واجب إذنكو إن هذا مدحظة إمام الكوه قانستان ولو تأمر عليكم عبد حبشي الدون مدحي سؤوية هي سيدة دقسيقة وكالتميه سيهين هدو حتى مدح إذن نغضو وصيغة مبالغة ويه الدون مدح من غنكر ومدى روح الدونة ولا ليه هي لكن وحا لقاها بريا qof kasta oo muslim ah oo madax ku waasta ayan kana qabiiluhu wa ayan kana nawcuhu mar haduu muslim yahay muumina inaad markaa u hogaansatid ma lam yamurka macsiyatan hadii aanu macsi ku amrin oo amar ilaahay uu diiday in la sameeyo aanu samay ku lahayn inaad u hogaansatid baa waajib kugu ah waayo hadii kale la daacata li makhluuqin bi macsiyati al-khaliq إلهي وحلا جو عاصيه عدنا لجو أدعي مايو فتن كمان تصعده ووضن كان عميمي من مشرقها ومغربها وما لنتي بركة يسندو حتى توجمعها ليك دادنا أيو وحي إلهي لقما قنقلوية سبحانه وتعالى عدة وحا أبابو ليس كشغيني سمياني أغين إن إلهي هرتق دونان إن أمد التنوحي لقول لا يولويدين دونه waayo qofka sababa fidnada iyo kan wax dilaa isku dambi bay noqonayaan qofka sababu noqda qofka kan in la dilo iyo kan dilay isku dambi bay noqonayaan haddii marka arrintu sidaa tahay oo alqaatil iyo musabbib iyo kulli xataa kan dilka soo doonanaya ee dilka soo aadaya laga reebayo isaga nafkiisu dambiilu noqonaya waayo meel islaamku wuxuu ina amray hadday kulmaan مفسده يا مصلحه وحلا هرمريا مصلحة هذا اللي بم مفسده كلمان لبدا مفسده تيد بيربع لقاتا هذه اللي بم مصلحه كلمان لبدا مصلحه تي أجا خير بدن بالغاتا قواعد الإسلام كن نوعوية مفسده واحد كسوق قادا قولي أنا هذا أبانا بحث سمين يدي قدادنا يومات يضل لنا يو inay u arkayeen maslaxad inay tahay inay banaan baxaan haddii ay waa og yihiin oo kuwa ay wadaan waa hubaysan yihiin waxa ka horeeyana waa ciidan hubaysan waxay og yihiin marka in meesha dhimasho iyo dhiig ka imanayo maslaxada waday oo ahayd inay banaan baxdo
iyo mafsadada ka dhalanaysa keebaa marka in la badbaadiyo u baahan ma mafsadada in la badbaadiyo u baahan mise maslaxadii in la wada baahan waxa weeye mafsadada in la badbaadiyo oo laga joogo baa wanaagsan islaamku saasuu ina amraya haddaad og tahay meesha maslaxadda aad ka shaqaynayso mafsadada ka dhalanaysa inay ka weyn tahay waajib waxa kugu ah inaad joojisid mafsadada baa waajib kugu ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inooma bannayn inaynu nafteenna halaag iyo dhibaato la doonno walaa tulquu aydiikum ila tahluka halaag inaynu nafteenna ku raadsanno oo dhib raadsanno waxaa la yidhaahdo mudaaharaadkuna cibra aynoo ku sugan wixii ka dhacay caalamulcarab rabiiculcarab waxay u bixiyeen ee gaaladu ay soo abaabushay ee maanta dawlado dhan lala yahay ee ummado dhamme ay aakhiro ku aadeen tii weeye waxa laynala rabaa cidda marka waxaan dabada ka wadee ina abaabulaysaa khayr inooma wadaage waxay inoo wadaan ummadihii hore ee la waayey meeshii lagu waayey inaynuna ka daba tagno layna waayo bay ka shaqaynayaan cidda marka caqliga iyo maskaxdu inay shaqayso loo baahan yahay waa ummadda Soomaaliyeed oo la rabaa inay ka fikiraan oo ka fiirsadaan afcaashay samaynayaan maxaa ka dhalan kara rabiicul carab haddaa samayso maxaa ku iman kara maslaxadda ka dhalan kartaa maanta inaad mudaharaad samayso maxay tahay dhibaato iyo dhimasho waxaan ahayn oo ka dhalan karaa maxay yihiin miraha laga gaari karaa faa'iidada ka iman kartaa maxay tahay ka soo qaad inaad barnaamijday oo wadada madhay maxsuulka gaadhay muxuu yahay yani maxsuul maad gaarin laakiin fitan iyo musiibo iyo dhibaato gaadhay dadka dhintay sababaad u noqotay cidii dishayna waa kula mid waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed war aan ka fiirsanno dhibaatada iyo mashaqada iyo mashaakilka cadawga shisheeye oo inoo soo falkiyay inoo soo gudbiyay aan ka fiirsanno dhibaatada la wado ee la rabo in layna ku jiinguuriyo waxaan u malaynayaa YouTube-yada waa ka daawatay nin Masri ah oo ka hadlaya Soomaaliya iyo maqaasidda iyo ujeedooyinka laga leeyahay Yuhuud Imaaraat Masar Kenya cadawgeeda oo dhan qorshaha Sacuudi qorshayaashaasi khabaru kaanay noqoto Soomaaliya la doonaya war kaleeto iska ilow Soomaaliya wax la yiraahdaa jiri jirtay in la yiraahdo weeyaan dadkan marka u shaqeynaya oo u fududaynayaana waa dad la soo dirsaday weeyaan ama waa dad caqligoodu gaaban yahay oo masaakiin iska direeyeen labada mid weey ama waa umaal ama waa dad caqli gaaba waxa la yaab leh dad madaxweyne dalkan ka soo noqday oo fawdo bilaabaya madaxweynayaal dalkan ka noqday iyagu soo xukumi jiray oo maanta iyagu horseedka ah fitanka iyo dhibaatada iyo dhimashada ummadda Soomaaliyeed war dadkaasi sidee bay mas'uuliyad u qaadi karaan sidee wax loogu dhiibtay waxa halka ka muuqata boqolkiiba 90 ummadda Soomaaliyeed aanay mas'uul qaadi karin waayo noocaasi wadaamisan yihiin intooda badan nin shalay madaxweyne ahaa oo ummadan qaran dhan madaxweyne ka ahaa oo maanta qabyaalad iyo qabiil iyo wax ilaahayna ka shartiray hogaaminaya wax laga yaqiiqsoodo weeye waxa ka sii daran ra'iisul wasaarihii dawladdan ka mid ahaa baa horkacaya dhibaatada wax laga yaqiiqsoodo weeye ceeb weeye wax laga yaqiiqsoodo weeye in maanta khayr uu hoggaanka u hayo dhibaatada iyo dhalaanka la leynayo iyo shabaabka la leynayo iyo xabadda dhacaysa oo dawladdu isagu ka mid ka ahayo halka soo gaarsiiyay maanta uu fawdadeeda bilaabayo shalayna uu la dagaalamay in fawda lagu sameeyo ma qaraayb weeye marka waxaad arkaysaa inaynaan ahayn ummad caadi ah ee aynu nahay dad bini aadamka in laga qabto aynu nahay dhisbaynu nahay xaqiiqada marka laga hadlo mucdamkeenu marka leeno eego ummadda يعني أمد يدو قعنته إذا يسكت ليسو يسكت بابينيسا ويسبربرينيسا وهرمر كذا ديدن والشلي يعني أن اعتبارنا يوحي الشلي إنه كل عي قبيلة ذي الدجال كشلي يوحي نهر ساضي مستحيل بأسد إحنا كسوه الشيسي دولة الصومالية يريدان وهي هاي عيديد ين محن كويل هذا عبد الرحمن تور ينك الله يراهضو إن عمر جاس ما حيدا شيء قبيلات بيدا شيء إيش يسكودي محور علي صومالية ملايين صوماليين يأخروا باسم القبلية يوجوه يطلب بيو تاني نواتي وكله والنفس الشيء ويا كوا ما أنت يسكو قرب كاهي بريتو يجي سلينا يا هدا يبى صورة قلق شو إلهي ما قدره إن هدا واحد جراي كتغلصان عكت مريان بريتو كوا مرتا يسكاز ليا يجي نفكو دويا waayo ku cibra qaadan maayaan shalay wixii dhacay war wixii shalay dhacay maxaa ma umulba ila shadhowaay
miyaan caqligu samidda kale waxa la sheegay aqoonyahan baa la yiri aqoonyahan war aqoonyahanku muxuu yahay waxa la leeyahay aqoonyahannaa hawshan ku jira oo hogaaminaya maxaan ku dhahay mucaaradadan aqoontu waa inay sharka iyo khayrka ku kala tilmaami kartaa waa inaad garan kartaa waxa dhibka iyo dhibaatada keeni kara iyo waxa khayrka iyo wanaagga keeni kara aqoontaada haddii sida ahayn jaahil murakkaba baa tahay aqoon ma lihid jaahil murakkaba baa tahay haddii aqoontii aad lahayd nin dhalinyaro ah baan 91kii annagoo Uganda joognay intuu Nairobi ka yimi waa sheekaysanay wuxuu yidhi nin hebel la yidhaahdo oo Maraykanka iyo England iyo meelaha ka yimi baanu sheekaysanay markaasuu wuxuu igu yidhi nin waxaan ku su'aalay annaga iyo reerkiina yar waa laba nin oo isku qabiila laakiin laba lafood kala ah kiina iyo kaayaga reerka inaan annagu idinka badannahay soo ma ogid waxaan ka fekeray buu yidhi ninkaasi waxa lagu tilmaami karaa aqoonyahan wuxuu tagay dhulka ilbaxnimada iyo horumarka kelmadda uu maanta ku hadlayo kii isaga la dhashay baadiyaha jooga geela waday muxuu oran doonaa talo muxuu ku sheekayn doonaa waa qaraa'ib dadka noocaas aynu nahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqda iyo talada hayna waafajiyo dembigeenna allaha dhaafo ilaahay sharka hayna ka hayo musiibadan taagan allahayna ka badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhwata alkiraam fitanka maanta oo waxyaalaha fitanka oo dhacay qofka muslimka waxa looga baahan yahay mawaaqif inuu ka qaato mowqifka qofka muslimka ahi fitana kale laba arrimood buu kaga badbaadi karaa التصلح بالعلم iyo التصلح بالصبر inuu aqoon leeyahay oo aqoontiisu ay ka badbaadiso waxa taagan inuu sabr iyo dulqaad u leeyahay xataa hadii laga buro sidoo laga sadkiisa la qaadanayo tasabbur iyo adkaysi ayuu kaga gudbi karaa maxaa yeelay labada arrimood midna waxay ka hortagaysaa shubuhaadka oo cilmiga waxa la yeeyo wixii shubuhaada oo shirkiga iyo diinta islaamka oo laga dhaqaaqo la burburiyo bay ka hortagaysaa at-tasalluh bil ilm at-tasalluh bis sabrina waxay ka hortagaysaa shahawaadka waxa alla iyo wixii bini aadamku uu doonayo oo dhan inuu ku dhaco oo sameeyo sabr iyo dulqaad inuu ka qaato baa wanaagsan shahawaadka iyo shubuhaadku waa asaaska fitan kasta oo adduunka ka dhaca labada shay baa asaas u ah labada shayna waxa lagaga badbaadi karaa cilmi iyo aqoon diineed iyo sabr iyo taxamul iyo dulqaad ilaahay dartii loo sabro qofka muslimka ah mowqifka la rabo inuu ka qaato arrimahan oo kale waxa weeye ilaahay kitaabkiisa inuu qabsado iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo luzumul jamaaca wa nabd al furqati wal ikhtilaaf inuu tuurisan yahay in farsamo loo furfuro maahe in xoog lagu dumiyo waa ka soo horjeeda sharciguna ma ogolo marka shalay ahayd burburkii dhacay waa haynaa midhihii ninkii noolaa dowladdii thawrad bay ahayd waxay dooni ha ahaato laakiin shar bay ahayd sharar badan ka soo horjeeda على الأقل وحكله دين تواب لا دريري سوى دتك هيستا دين لما دريري دتك هيستا لا دريري مركا دبتها ساجرتي لكن ما أنت هتنا عقلك إلهي إلا تابتم أقولادين عقلك ما أنت لا يهدى واجع لها نجر حالي واحد الله صعتان حمر واحد كده عيدقال ولو كوبنا هذا نساكن الرصاص بن مغليني أنا هذا كسي ليران مايو أفر قولان لهدل وحال لهدل دولة فدرالك مدوغا مرشحين تا تدك حمر تكن صومالي دكو دهان أفرت هذا وأفر وكوبي سيد حكي القري مايو دولة فدرالك ما أنت إذا وطك مسؤولك وقت يقول هذا ماضو لكن شرعيا حتى نظامك الدولي كما قاضيو صوبته هذه اللي صاروا إيضا فوضى نعيسة marka iyaga madax ka ah dawladda waxa soo jeedinaya marka federaalka oo madaxweyne farmaajo madax ka yahay dhiigga Soomaalida ilaaliya qofka Soomaaliga waa qiimo badan yahay waa muslim waa miskiin waa la soo kicin karaa wuxuu u baahan yahay inaad inka mas'uulka dhiigiisa ilaalisaan qof inaad dishaan dhiig inaad daadiso dawladdu ma banaana ilaahumma xaalatul indiraar waqti laga fakan waayay maahay marka wadanka ilaaliya dulqaata dadka gaarsiiya doorashada anu doorashada soo socoto ma ogoli laakiin waxa jira sharar badan ka fiican
shar waxa jira sharar badan ka fiican haddaynu ku nasanayno haweenku noogu dhalayaan odayaasha sariirta ku seexanayaan carruurtuna rasan oo quraanka ku akhrisanayno ku xajiyayno oo maxaa ku shaqaysanayno waxay dhaantaa inagoo qaxna noo islayna dowladdu intaasaan odhanaa midabka murashaxiintana waxu diro badankooga aan garanayo badankooga waa qaanaa waxa weeye maadaama aad rabtaan kursigaas ood rabtaan berrina madax noqotaan wanaagiina dadka tusa sharkiina dadka tusina wanaagiina keena dibadda soo dhiga soomaalinimadiina caddeeya xabad ha bilaabina mudaaharaad miyaa ma bannaana khudbaddana way ku jirtay miithaalkan inii soo qaadi madaxweynihii liibiya macmar qadaafi maanta waa malag haddii la heli lahaa la socotaan liibiyiintoo dhan maanta waxay jimaac ku yihiin haddii ninkaan la keeni lahaa inay dhulka ka qaadi lahaayeen odhan laha ilaahu noo daa maxaa keenay burburkii ka dhacay iyo fitantii ka timid beer kale iska dhaaf yaman waad arkaysaan waa yacni waxa weeye laguma ordo burbur waxa la yidhaahdo midowga murashaxiinta waxaa leeyahay mudaaharaadka joojiya waa xaaraam sharciyan haddaad in kuntum tuuminuuna billaahi walyowmi alaakhir war dadka ka daaya mudaaharaadka haddii soo ma rabtaan kursi iskugu taga farmaajo ka tuura kursiga iskugu taga dhammaantiin ninu qabsada doorashuu ku yimid doorasho kaga tuura boqor ma aha afgembi kuma qabsanin doorashuu ku yimid doorasho keena weliba guddidii ku shirtay meeshii loodhan jiray baydhaba ha la xoojiyo